السلام عليكم أصحابتي soo dhawaada muuqaalka leente caawa muqdisho la dhax wareegaya qaybaha ugu shidan ee muqdisho wili habeen ma arkin marka waxa lagu dhaca caawa meesha ugu shidan muqdisho lagu geenaya soo raaca dee muqdisho u xiisteen muuqaalka uu inaan facaya in aragtiin muqdishada cusub ee wiliba habeenkii xilliga Soomaaliya joogay wadooyinkan oo hadda amaroono u maleynaa inay shaqeynayeen Makka al-Mukarram iyo dabki iyo wadooyinkaas areadas waa laga cabsoo jir marka ogaay haddana maasha Allah ku dhahay waa meelaha ugu shidan caasimadda wadadan waxa ku yaalo dukaaman badan dukaanaas oo agmar waxa u maleynaa kii xamdu bil inuu yahay شادي شرف ما عليك wadada magaceeda la ibarayay anigu waaba kala fahmi la ilaa hadda Makka al-Mukarram iyo dabka iyo shaqaalaha hal wadamiya laba wadamiya ilaa hadda ku wareersanahay ganacsigan ku dhahay magaalada caadi ma aha soo kala socdo Soomaaliduna waa dad ganacsiga ku fiican laakiin Soomaalida waxa ka maqan aqliga warshadaha inay sameystaan hadii dalkan warshado loo sameeyo wax soo saar yeesho qof walba oo Soomaali shaqo heli lahaa taasna waxa kor u qaadanayaa dhaqaalaha dalka laga yaabo inay jiraan dad Soomaali ugu fikirayaan inay warshado sameeyaan waxa dhiilaa dad jirtiin soo dhaqsada walidiin baahan yahay dhalinyaro badan oo wax baratay oo baalamuude ay joogaan oo ka faa'iideysan doonaan insha Allah dadka may waxana qaan waaw areadan inaba caadi ma aha supermarket-ka wax badan ka fiirsaday Astaan TV ugu dambeyn lugiga ku imaaday xamara imaaday supermarket-ka caalamiga ee Xayaadna ma soo booqanin macquul ma ahan inaba caadi ma ahan Xayaad supermarket oo diyaarsan yahay waxa loo diyaariyay qaabka oo supermarket-yada caalamka oo jeediyeen hilibka oo dhalada ku jiro qaboojisada ee keega dhalada ku jiro qaboojisada ee cabitaanada iyo nooc laakiin xoogay dhaliil waxa uu hayaa cuntada ay gadaan waxay u badan tahay cuntada dibadaha laakiin maxaa la sameynayaa dalkii wax soo saarkiisa askiyar ama aaba lahayn sidaas darteed ku qasbiyeen dibadaha ka keensadaan يعني زمزان تلوع عن سلطة ما دام أنا خضار كسكري ضد خضار لي أهاجرني مركا أركين زمزان وأحيس يعني زمزان تصبح هواية يعني الصومالية ما هم يديو ذا لا يكين هاي دقابة يقول هاي أنا بقدلوه هاي ugu dambeyn supermarket-ka waa ka soo baxay cabitaan yar iyo wax ka soo iibsaday jalaato maadaama aan shopping u soconin laakiin aan u socday bashaal iyo magaalada ku dhex dalxiiso la iska maadaama aan aniga dalka deganeen xabadii jalaatada soo qabsaday mac salaam asxaabteyda